Assalaamu calaykum asxaabta, halkan waa Saciid Madaali Sports. Waxaad ku soo dhawaataan wararkii u dambeeyay ciyaaraha. Rodri oo la sheegay inuu ka tagayo Manchester City, waynu falanqeyneynaa. Manchester City waa inay si cad u muujisaa mowqifkooda ku aadan mustaqbalka Rodri kadib markuu khadka dhexe uu bixiyay hadallo lama filaan ah oo ku saabsan suurtagalnimo in mustaqbalkiisa uu ugu biiro Real Madrid. 29 jirkan ayaa wuxuu kusoo biiray City 2029 isagoo ka yimid Atletico Madrid. Wuxuu tan iyo markaas si taagay mid ka mid ah khadadka dhexe ee ugu fiican kubadda cagta adduunka. Rodri ayaa 4 jeer ku guuleystay Premier League, wuxuuna guud ahaan la qaaday 12 koob isagoo ciyaaray City. Wuxuu si gaar ah loo xasuustaa goolkii guusha ee uu ka dhaliyay finalkii Champions League 2023 kaasoo kooxda u xaqiijiyay saddexley taariikhi ah. Ciyaaryahanka xulka Spain ayaa ku dhawaad 300 kulan u saftay City tartamada oo dhan, isagoo dhaliyay 28 gool isla markaana bixiyay 32 caawin. Wuxuuna door weyn ka ciyaaray khadka dhexe ee Pep Guardiola, iyadoo maqnaanshihiisa si weyn loo dareemo. Kadib markuu ku guuleystay Ballon d'Or-ka sanadka 2024 oo loo aqoonsaday ciyaaryahanka ugu fiican adduunka, Rodri wuxuu wajahay 18 bilood oo adag oo dhaawac ah kadib markii uu jab ACL-ka kasoo gaaray Sebtembar 2024. Sanadkii 2026 Rodri wuxuu dib ugu soo laabtay ciyaar joogto ah, wuxuuna ka qayb ahaa kooxdii City ee ka badisay Arsenal finalkii Carabao Cup-ka ee Wembley toddobaadkii hore. Rodri hadda wuxuu la joogaa xulka Spain, balse wuxuu kiciyay walaac ka jira Etihad kadib markuu qirtay inuu jeclaan lahaa in mustaqbalkiisa uu soo laabto dalkiisa, isla markaana uu sheegay in ku biirista Real Madrid aysan ahayn albaab xiran. Si xoogeystay maadaama uu galayo 12 biloodkiisii ugu dambeysay qandaraaskiisa xagaagan. Rodri ayaa sheegay in isaga iyo maamulka City ay mar un fariisan doonaan ayna ka wada hadli doonaan xaaladda qandaraaskiisa. Man City oo dooneysa inay sii haysto Rodri, sida ay sheegtay Sky Sports, Rodri weli waa ciyaaryahan ka tirsan Man City ay rabto inay sii haysato, waxayna dooneysaa inay la gaaraan qandaraas cusub. Warbaahinta waxay sidoo kale sheegtay in City aysan faallo ka bixin wareysyada kaasoo laga qaaday ka hor kulamada saaxiibtinimo ee Spain ay la ciyaari doonto Serbia iyo Egypt toddobaadyada soo socda. Dhibaatada weyn ee ku saabsan mustaqbalka Rodri haddii Man City ay ku guuldareysato inay heshiis cusub la gaarto Rodri, waxaa suurtagal ah inay iibiso xagaagan si aysan u lumin bilaash marka qandaraaskiisu dhammaado June 2027. Marka uu yimaado waqtiga kala taga beddelka Rodri, Pep Guardiola ayaa ku tilmaamay mid aan la bedeli karin, wuxuuna noqon doonaa shaqo aad u adag. Wararka ku saabsan mustaqbalka Rodri ayaa imaanaya xilli ay City sidoo kale wajahayso suurtagalnimada inay weydo kabtankooda Bernardo Silva kaasoo qandaraaskiisu dhacayo xilli ciyaareedkan. In la waayo laba ciyaaryahan oo muhiim ah oo khadka dhexe isla markaana hogaamiyayaal ah waxay cabsi ku tahay taageerayaasha City, waxayna muujinaysaa baahida degdega ah ee kooxda u qabto inay xoojiso khadka dhexe. Elliot Anderson oo ka tirsan Nottingham Forest ayaa la rumeysan yahay inuu ka mid yahay bartilmaameedyada ugu muhiimsan ee City, halka sidoo kale la sheegay inay daneynayaan Adam Wharton Crystal Palace ka tirsan iyo sidoo kale Carlos Baleba oo ka tirsan Brighton. Saaxiibayaal, waad mahadsantihiin daawashadiina, ha iloobin inaad subscribe saarto.